محمد صلاح ليفربول xilligan waxay kala taageen heerkii ugu sareysay inay kala tagaan guuldarooyinkii soo noqday kooxda Liverpool ayaa u muuqata xilligan in dusha loo saaray legendiga iyo xidig kamid ah xidiga ugu wanaagsan Soomaali Liverpool ee Maxamed Salah saddex kulan ku soo bilowday keedka ugu dambeyn xidig ayaa furtaafka wax badan ayuu ka hadlay xiriirka la dhaxeeyay isaga iyo tababar Arne Slot maxay tahay wax loo qoondeeyay xilligan maamulka kooxda Liverpool iyo macalinka inay ku sameeyaan Maxamed Salah kulanka Champions International dhammaan sheekooyinkaas muuqaalkan ay ku daawan doontaan saaxiibayaal haddii ku soo gaar like inoo saar saaxiibadaada la wadaag mahadsanidin Salah wuxuu yiri mar rumaysan karo aad ayaan u niyajabsanahay wax badan ayaan u qabtay kooxdan qof walba arki kartaa sanadii la soo dhaafay karaan xilaaladkii hore inaan kursiga keed ku jiro ma garanay sababta waxaan dareemayaa kooxdu ay baska hoostiisa igu tuurayso taasi waa sida hadda dareemayo waxaan dhowr jeer hore u sheegay in xiriir wanaagsan la leeyahay maamulaha si lama filaan ah xiriir la maliya waqtigan ma garanay sababta ma aha wax la aqbali karo si daacad ah ma garanay sababta ay hadii jeer igu dhacdo waxaan ma ku toornay baska hoostiisa sababtoo ah isaga ayaa dhibaatada uma maleynayo inaan ahay dhibaatada kooxda waxaan waa isbuucan hooyaday maanan ogeyn inaan ku soo bilaaban doono kulanka aniga sabab ogaataa waxaan ku yiri imaa ciyaarta Brighton muhiim ma aha inaan ciyaaro in kale waan ku raaxaysan doonaa waan arki doonaa waxa dhaca maskaxiyan waan ku raaxaysan doonaa si kastaba sababtoo ah ma garanayo waxa dhici doona si kasta ciyaartu waxay ka dhici doontaa Anfield marka taa waxay noqon doontaa macsalaameynta ka hor intaan aadin Afcon Salah waxaan soo qabtay kooxdan marka la eego runtii xanuun ayaan dareemayaa waad qiyaasi kartaa xaqiiqdii kadib markaad guriga ka soo tagto ilaa kooxda aadan ogeyn inaad ku soo bilaabanayso in kale si fiican ayaa kooxdan u garanayaa sanado badan ee halkan joogay Kimi Karaga ee Premier Crofan ay qaadan doona bari kaliya maahan mar kale iyo marka dhibaatana ma lahan waa iska caadi tan iyo inta Premier League mid ay joogay kooxdan waxa ahaa mid dhaliyo goolal badan qof walba oo jiilkan ah ma garanayo inuu jiro qof iga goolalin iyo caawin badan guud ahaan Premier League haddii aan meel kale koox kale joogi lahaa qof walba media ayuu tagi lahaa oo difaaci lahaa balse aniga kaligay wax xaaladan ku suganahay micnaha cidna ima helinayso yiri Maxamed Salah يعني هذا الذي عجيب كأو كسو يري كدب ستح كلهم كانت كسو بالعاضي كويس ليفربول صالح يا سيدو كليري كوحدن متاع بدني يعني كشت واحد بدني يعني وسوق قبتي صالح على شيء يكالي كدب كلهم كي ليدز يونايتد يحرش يكجر يبرنانك كيني صالح هذا يونفس وقت كان لما اوغا بنيجي تنو سو علين دونا مقرانك لو كسو بلعبي دونا دينا كلام امرك كوحده iyo macalinka ee waxa leeyahay shir jiraayid ay leeyihiin isku abgaran doonaan in Salah laga saaro iskuweedka kooxda kulanka ugu soo horay International Champions League isbuucan la ciyaari doonaan xaaladdu cirka ay sii tagtay kooxii Sacuudiga Carabiga taleefanada ay soo qaateen si uu soo wacaan Maxamed Salah isagina wuxuu diyaar u yahay xilligan in uu ka tago kooxdan kooxda Rediska xaaladii ugu jirto Maxamed Salah miyaa loo aaneyn karaa mise macalinka